bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka oo 23 bisha Febraayo sanadka 2024 waa maalinimo jimco ah ha hilmaamin inaad akhriso suuratul kahfi maadaama ay tahay maalin jimco ah oo aad badiso dikriga alle iyo xuska nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan xuutiyiinta Yemen oo la soo baxay gantaale kale oo halis badan weerarka ay ku qaadeen mid ka mid ah maraakiibta laga leeyahay dalka Ingiriiska Turkiga afartii toddobaad ee la soo dhaafay heshiisyo waaweyn ayaa uu galay oo dhanka difaaca ah marka laga yimaado Soomaaliya sidoo kale wuxuu heshiis la galay dalka Djibouti waa maxay sababaha Turkiga oo heshiisyada dhanka military ula galayo dawladaha gobolka macluumaad gaar ahaaneed oo arrinta ku saabsan ayaan eegi doonaa dunida waxaad moodaa xaaladeeda inay aad ay halis u sii galayso hal qalad oo la sameeyo ayaana wax walba dhinaca kale u bedeli karaya xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta weerarada gaadmada ah oo ay ku qaadeen ciidamada Israa'iil taangiyada ay gubeen dagaalka adag ee ka dhacay mar kale dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza maxaa ka jira in Iiraan iyo Xisbullah xogaa khilaaf uu soo kala dhex galay warbaahinta iyo macluumaadka ay qorayso wafdigii ka socday Xamaas ku sugnaa magaalada Qaahira oo socdaalkooda soo gabagabeeyay iyo wafdi Israa'iil ka socda oo maanta tagaya magaalada Paris ee dalka Faransiiska arrimihii maxaabiista iyo arrimo kalena u tagaya qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku hormarno bal ka waran adigoo saaran diyaarad rakaaba meel sarana ku jirta marka dhanka hawada laga hadlayo oo ugu yaraan caadka labaad korkiisa sidaas wax ku fahmaynahay ay diyaaraddu marayso haddii nin ka mid ah diyaaradda ama dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda saarnaa uu ku fikira ka waran in daaqada qaybta emergency oo dhanba uu furo soo halis weyn ma ahan arrintaasi waxay ka dhacday dalka Mareykanka labadii maalin ee la soo dhaafayna waa muuqaalka loogu hadalhaynta badan yahay ee dalka Mareykanka waxaa la sheegay ruux ka mid ahaa rakaabka saarnaa diyaaradda American Airlines oo ku sii jeeda magaalada Chicago in uu sameeyay dhacdadan laakiin dadkii rakaabka ahaa iyo qaybtii amniga ee diyaaradda saarnaa intay qabteen isaga dhan ayay meel ku hayeen ilaa diyaaradda ay ka soo degto ugu dambeyntiina diyaaradii markay soo degteen ciidanka booliiska ay ku wareejiyeen waxay yiraahdeen ninkan qalqal buu nageliyay wuxuu doonayay diyaaraddu inuu hawada iyadoo marayso albaabka uu ka furo kadibna uu yaraan isagoo istuuro dadkana uu halis geliyo naftooda waxyaabaha ku qasbay lama sheegin baaritaana ayaa weli soconaya caalamka markaad eegtana xaalad halis ah ayaa uu ku sugan yahay oo meel kasta xiisad ayaa ka taagan qoriga keebkiisa ama qaybta laga rido rasaasta ayaa gacanta lagu wada hayaa hal qalad oo la sameeyo ayaana horseedi karaya musiibo weyn oo ka dhacda guud ahaan dunida iyo gobolkaba oo markaad aragto meel kasta xasarad ayaa ka taagan waxaana laga baqayaa in mar qura xaaladdu ay isbedesho haddii sida hadda ay wax ku socdaan aan wax laga bedelin oo ugu yaraan xal aan laga gaarin meelaha ugu badan oo khilaafaadka ay ka taagan yihiin sida marinka Gaza waxa ka soconaya waxaba laga baqayaa in ay horseedaan marxalada kale dadka qaarkiina waxay aaminsan yihiin qobarrada dhinaca militariga in dagaalka saddexaad ee dunida sidan uu ku socdo laakiin kaliya ay dhiman tahay in hubkii cuslaa la soo adeegsado Ruushka iyo Mareykanka way soo bootaynayaan xaaladdu way adag tahay sidoo kale Ruushka waxa lagu eedeynayaa inuu doonayo hawada sare inuu u diro hubka nuclear-ka Ruushka arrintaasi waa uu ka jawaabay xaaladda Ukraine wali waa ay taagan tahay waxa maara loo leeyahay dagaalka ka soconaya bariga dhexe iyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa oo qolo kasta waxay doonaysaa qorshe gaar ah qabiirada dhanka militariga ah ayaa marka waxay leeyihiin xaaladdu way adag tahay guud ahaan caalamka marka la eego hal qalad oo la sameeyo ayaana annaga oo idil nagu filan oo keeni karaysa musiibo laga dareemo guud ahaan caalamka waan arki doonaa xaaladda soo korodha mar walba kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen waxay la soo baxeen awood kale oo aan la dhayalsan karin kadib markii maalmihii ugu dambeeyay ay fuliyeen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta isticmaalaya biyaha badda cas ee ugu yaraan ku wajahan Israa'iil waxa soo baxay hadda inay soo bandhigeen hub kale hubkaas oo markii hore maraakiibta waxay ku duqeyn jireen gantaaladooda plastic hubkan markaan waxay leeyihiin gunta hoose ayaa maraakiibta ka weerari karayna oo haddii gunta hoose maraakiibta laga weeraro gabi ahaanba markabkaas xaaladiisu way adkaanaysaa
sidoo kale waxay arrintan shaqo kale oo cusub ay ku noqonaysaa Mareykanka maxaa yeelay markii hore maraakiibta waxay ka difaacayeen dhanka hawada haddana waxay ku qasban yihiin mar kale haddana inay si weyn u dhaqaajiyaan oo ay qaybta difaacana iyo heegankaba ay ku soo daraan maraakiibta loo yaqaano gujisyada ee badda hoosteeda ku jira maraakiibtaas oo iyagana la sugayo inay ka hortagaan hubka ay xuutiyiinta dalka Yemen soo bandhigeen afhayeenka kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen Cabdulmaalik Al-Xuuthi ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu soo bandhigay sawirada muujinaya ciidankooda oo isticmaalaya qaar ka mid ah hubka loogu talagalay maraakiibta in qaybaha hoose looga burburiyo hubkaas oo badda dhex jibaaxaya kadibna ku dhacaya maraakiibta waxa uu sheegay in 48 saac la soo dhaafay ee bartilmaameedsadeen tiro ka mid ah maraakiibta ay leeyihiin dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka sidoo kalena waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan garab istaaga dadka shacabka ee Falastiiniyiinta ilaa ugu dambeyn laga ogolaanayo in gargaarka la gaarsiiyo dadka shacabka ah lana soo gabagabeeyo dagaalka ka soconaya magaalada Gaza afhayeenku waxa intaas uu ku daray marka inay soo bandhigeen hubka loogu talagalay in maraakiibta gujisada iyo waxyaabaha kale xitaa lagu baabi'iyo hubkan waxa uu yiri marka annaga ayaa farsamaysanay waana sii wadi doonaa in aan soo saarno noocyada kala duwan ee hubka oo ku bartilmaameedsanayno kooxaha ka soo horjeeda in amni ay noqoto magaalada Gaza sidoo hadalka u dhigay afhayeenka xuutiyiinta ee dalka Yemen wuxuu hadalkiisa sii raaciyay erayo walwal kale oo hor la abuuraya wuxuu yiri inaan soo saarno hubka marka laga yimaado sidoo kale waan howlgelinay oo howlgalla ay bilaabayaan noocyada kala duwan ee hubka oo kuwa quusa waxaana walwal ay arrintan ku abuuraysaa Mareykanka Ingiriiska iyo dowladaha kale sidoo hadalka u dhigay ciidamada Mareykanka ayaa maalmo ka hor waxay sheegeen in xuutiyiinta ay badda hoosteeda ay u adeegsanayaan doomo iyo sidoo kale gantaalo kuwaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta oo markii hore gantaalada plastic ay isticmaali jireen hadda awood kale oo dheeraad ah ay la soo baxayaan kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen markii hore halkii gantaal ayaaba oo marka laga hortagayo malaayiin dollar ay ku bixisay haddana waxa lagu qasbanaanayaa mar kale in laga fakaro sidii looga hortagi lahaa hubkaani quusa ee maraakiibta qaybta hoose looga bartilmaameysan karo waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha xuutiyiinta dalka Yemen iyo awoodda sii kordhaysa oo ay la soo baxayaan markaan aan eegno maxaa keenaya heshiisyada tirada badan ee Turkiga lala galay maalmihii ugu dambeeyay heshiisyadaas oo inta badan ku saleysan dhanka militariga iyo difaacaba Soomaaliya waxay heshiis la gashay dowladda Turkiga heshiiskaas oo baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba ay meel mariyeen madaxweyne Xasan Sheekhna uu si faahfaahsan uu kaga hadlay marka Soomaaliya laga yimaado waxa jiray maalmo ka hor in dalka Djibouti heshiis dhanka militariga ah oo la galay dalka Turkiga heshiiskan sida la sheegay waa iskaashi dhanka militariga ah oo ay labada dowladood kala saxiixdeen ujeedka heshiiskan waxa lagu sheegay inuu yahay in sare loo qaado awoodda dhanka military ee dowladda Djibouti sidoo kalena dowladda Turkiga iyo Djibouti arrimo badan ay iska kaashadaan munaasabad ka dhacday magaalada Ankara ayaa waxa heshiiskan ku kala saxiixday wasiirka gaashaandhigga ama difaaca ee dowladda Turkiga Yasar Guler iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee dalka Djibouti Xasan Umar Maxamed heshiiskan ayaa 3 arrin ka koobnaa waa 1 tababarida ciidanka dowladda Djibouti 2 iskaashiga dhinaca maaliyadda iyo sare u qaadida tayada qalabka ay isticmaalayaan ciidanka militariga ee dowladda Djibouti waa heshiis aad u wanaagsan oo anfacaya dowladda Djibouti sidoo kalena ka qayb qaadanaya awoodda sii kordhaysa ciidanka dowladda Djibouti maxaa yeelay Djibouti waxay heshiisyo kale oo dhanka militariga kula jirtaa dowlado dhowra dowladahaas oo inta badan saldhigyo kule gudaha dalka Djibouti loogana faa'iideeyay ciidanka oo tababaro kala duwan ay siiyaan